السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسنا أصحابي ميل كستو aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada mid kamid ah barnaamijyada ku talagalnay. barnaamijku waa kii labaad waa barnaamijkeeni galabnimo maantana waa khamiis taariikhduna waa 8 bisha May sanadka 2025. saddex qodob oo muhiim ah ayaynu barnaamijka ku eegi doonaa. waa wararka ugu waaweyn ee hadda miiska saaran. ugu horreyn waxaynu ka hadli doonaa Hindiya oo mar kale weerar soo qaaday. durbaba Pakistan oo sheegtay 25 diyaaradood inay soo rideen. xuduudda oo la sheegayo in hadda aan idila hadlayo madaafiic la isdhaafsanayo. wasiirka gaashaandhigga ee Hindiya oo hadlay iyo ra'iisul wasaaraha Pakistan oo isaguna hadlay. xaaladda guud meesha ay wax marayaan barnaamijkan idinku soo gudbin doona. qodobka labaad wuxuu noqon doonaa hadda oo aan idila hadlayo ciidanka Israa'iil oo isticmaalaya helikobtero iyo qalab kale ayaa burburka ciidankoodii guriyo ku soo dumay markii miina lagu qarxiyay Rafah ayay ka soo bixinayaan mid Al-Qassam waxay sheegtay waxa meesha ku jira inay noqdeen wax dhintay iyo wax dhaawacmay. Israa'iil maxay warar ka soo saartay sheekada iyana hadday socotaa ay miiska saartay. waxa soo kale aan idin hayaa Iran iyo Israa'iil oo isu hanjabay. wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil oo Iran u hanjabay iyo taliyaha ciidanka cirka oo jawaab la mid ah midda uu isagu sameeyay isaguna u hanjabay. haddaba saddexda qodob ee muhiimka ah ayaynu barnaamijkeena ku falanqayn doonaa. inta aan barnaamijka ku jirno waxay warar ee soo kordha waan idin la socodsiin doonaa. haddii aad nagala socoto Nadaara Show waa doonayso barnaamijkan oo dhammaystiran inaad hesho fadlan u soo wareeg Nadaara TV. sidoo kale qaybta commentiska ama fariinta ugu koreysa ku dhufo linkiga toos ayaad barnaamijkan u daawanaysaa. inta aan mar kale kulmayno nabadgelyo.